Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ah wadaad Wahaabi ah oo ku sugan dalka Kenya qaasatan Nairobi shalay wuxuu yiri cudurka coronavirus waa ciidanka Ilaahay asoo waliba farta taagay oo dadka farta ku fiiqayo ay wuxuu dhahay waa jundu min junuudillah. maantana markii cudurka coronavirus uu adduunka ku faafay oo meel walba gaaray dacal iyo deer uu gaaray ay wuxuu leeyahay sheekadan soo socota. intaan sheekada bilaabin ka hor wadaadkan shalay muu qaldanaa mise maanta? jawaabta adiga ayaa laga rabaa, bal nala daawo. الله تبارك وتعالى وحو كسو ديري عيدا ير وعيدمديسا كميدا عيدما فربضان ماها جند من جنود الله فيروس كورونا shalay ciidanka Ilaahay maanta ciidanka Ilaahay miyaan buufinaa? wadaadka Wahaabigow qodobka labaadi waxa weeye in meelaha lagu tukanaya iyo gogasha aad loo nadiifiyo oo la buufiyo si joogto ah salaadoodba gadaasheeda in la buufiyo oo la nadiifiyo salliyada lagu tukanayo dadkana sidoo kale lagu wacyigeliyo